إنا لله وإنا إليه الراجعون الله نحريستي جناك ورابيه قدومي كحيجينك هراء الدقمة الشيخ عبد عردن حاجة بكر ayaa maanta aas ballaaran loogu sameeyey xabaalaha dariiqada ee magaalada Sheekh ee gobolka Saaxil marxuunka ayaa xalay ku geeriyooday cisbitaalka Royal ee magaalada Hargeysa waxaana meydkiisa loo soo qaaday isla markaana lagu aasiyay maanta degmada Sheekh ee gobolka Saaxil waxaana ka soo qayb galay aaskii marxuunkaasi boqolaal dadweynaha ku dhaqan degmada Sheekh madaxda degmada madaxda gobolka iyo madaxda heer qaran waxaanay dhammaantood samir iyo iimaan in ilaahay ka sii waxaanay dhammaantood madaxdii ka soo qayb galay jinaasadaasi ay ilaahay u weydiiyeen marxuumkaasi inuu naxariistii janno ka waraabiyo isla markaana samir iyo iimaan ka siiyo eheladii qaraabadii asxaabtii iyo guud ahaanba qaranka Soomaaliland uu ka baxay geerida maanta aynu joognaa waa geeridii cabdi cartan xaaji abakor runtii cabdi wuxuu ahaa shakhsi yacnihii wax badan degmada Sheekh iyo guud ahaan nidaamka maamulka dowladnimada ka soo qabtay waa geerid tiiraanyale waa geerid magaranaysa aad u xanuun badan waa geerid dhammaan ku dhacday degmada Sheekh iyo guud ahaan bulshada ku noolba waxaan aad iyo aad ula qabaa tiiraanyada dhammaan degmada Sheekh maamul ahaan iyo shacib ahaanba ay dareemayaan maanta haliyey iyo haldoor degmadan tacab badan gashaday baa ka baxay wayna ilayhi raajicuun maanta waxaan halkan u joognaa tacsida cabdi cartan xaaji abakor oo ah mas'uul degmada Sheekh dhowr ilaa 10 sano u dambeeyay ka shaqeynayay arrimaheeda runtii waxaan u nahay makhraati uga nahay intii uu shaqeynayay inuu ahaa nin ummadiisa wax badan u qabtay dhammaan shucuubta Soomaaliland gaar ahaan degmada Sheekh waxaa la dhammaan samiriiman Allah inaga siiyo waxaan si gaar ah uga tacsiyeynaa qoyskii iyo eheliyadii uu ka baxay oo runtii aan leeyahay Ilaahay samiriiman hayna ka siiyo asagana qabriga ha waasiiciyo waa geeri runtii lagu wada xukuman yahay kulli nafsin daa'iqatil maut naf kasta oo dhadhamanaysa lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maanta waxaan joognaa aaskii cabdi cartan xaaji abakor oo runtii taariikhdiisa in badan laga hadlayay cabdi cartan waxa uu muddo dhowr iyo 20 sano ka ahaa maayir ku xigeen magaalada Sheekh degmada Sheekh waxa uu ahaa runtii niman mustambeedka imikana ah mustambeedka magaalada waxa uu ahaa tiirarka ugu waaweyn ee waqti xaadirkan xaafadda dariiqada nin aad u akhlaaq badan oo ahludiina ayaan dhammaan uga markacaynaa ilaahay qabriga ha u nuuro jannooyinkiisana ha ku manaysto cabdi cartan nin dhib yar oo aan dad waxba yeelin oon cid wax ka sheeganayn ilaahay naxariisti jarxaas iyo insha Allah fudaydiyo marka waxaan leenahay in ilaahay wa inna raaji'uun ilaahay qabriga u nuuro ilaahay qabriga waasixiyo beera waxaan imika waxa kala qaban karnaa inuu taayna waxaan leenahay ilaahay qabriga ha u nuuro ilaahay su'aasha ha u dhibireeyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu jannada firdawsi ilaahay geeyo wuxuu ahaa nin wanaagsan buuxa waxaan soo wada shaqeynaa muddo 8 sanadood ku siman waxaan ka wada hayn golihii muxuu ahaa inuu nagala shaqeynayay 8 sanadood nagala shaqeynayay wuxuu ahaa nin muxuu ahaa ummadda maslaxeeda ka taliya oo wacan buu ahaa ilaahay saasoo marxaati ka nahay waxaan leenahay ilaahay intii oo dadkii ka baxay degmada Sheekh horena samiriiman Allah ka siiyo wuxuu ahaa maayir ku xigeenkii ugu degmada dheeraa ilaa 94 ilaa iyo 2021kii ayuu ahaa wuxuu inta 4 sano ku siman ayuu maayir ku xigeen degmada ka ahaa wuxuu ahaa nin record iyo taariikh wanaagsan ku leh inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul maut halkan waxaan ka tacsiyeynaa qaranka Soomaaliland qoyskii eheladii asxaabtii dadweynaha reer Sheekh ee uu ka baxay marxuum cabdi cartan xaaji abakor oo ahaa maayir ku xigeenkii degmada Sheekh ee ugu muddada dheeraa ilaa dhowr iyo 20 sanadood maayir ku xigeen ahaa nin wanaagsan oo qaaliya bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu alayhi wasallam inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan maanta aaskiisii joognaa cabdi cartan xaaji abakor gudoomiye ku xigeenkii hore magaalada Sheekh nin buu ahaa nin qaran buu ahaa haliyey buu ahaa in badan baan soo wada shaqeynay nin wanaagsan oo macaan buu ahaa
oo aad u wanaagsan in badan buu ka soo shaqeeyey magaalada sheekh ka soo shaqeeyey eheladii iyo qaraabadii iyo xaaskiisa iyo dhammaan ummadda Soomaaliland ba ilaahay samiriyo iimaanka ka siiyo isagana naxariis janno ee baa ka waraabiyo bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maanta waxaanu joognaa aaskii Cabdi Cartan Xaaji Abukar waxaan uga marakacayaa inuu ahaa adoon wanaagsan ilaahayna waxaanu uga baryaynaa inuu jannada firdawsa geeyo adoon xabiiba oo wanaagsan buu ahaa waanu garanaynaa 30 sano ka dilinay dawladda hoose oo maayirka ka ay sheekh hogaaminayay muddada dheer sheekh waxa uu garatay inuu hogaamiyo akhlaaq iyo adaab iyo sumcad wuxuu lahaa inuu garanaynaa ilaahay waxaanu uga baryaynaa jannada firdawsa adoon xabiiba buu ahaa adoon gacantiisa iyo afkiisa iyo adinkiisa ummaddu ka nabad gashay buu ahaa ilaahay waxaanu mar labaad uga baryaynaa jannada firdawsa inuu dambigiisana dhaafo الله وإنا إليه راجعون إنا الله وإنا إليه راجعون إنا الله وإنا إليه راجعون waxaan joognaa tacsidii aaskii marxuum Cabdi Cartan Xaaji Abukar oo xalay abaarkooy tonkii ku guuriyay caasimadda Hargeysa ilaahay waxaan ku rajaynayaa qabriga oo nuuro ilaahay waxaan ku rajaynayaa inuu jannada firdawsa ka waraabiyo ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu qabriga wasiiciyo marxuum afgaan buu ahaa ilaahay oo naxariisto Cabdi Cartan Xaaji Abukar wuxuu ahaa nin ka caana gobolka saaxil wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenkii mudada dheeraad degmada sheekh wuxuu ahaa nin sheekh wax badan u soo qabtay marxuumka maanta aynu xabaashiisa joogno horta annagu waxaan soo wada shaqaynaynay muddo 26 sanadooda ilaahay hortii waxaan ka markhaati furayaa ninkaas inaanu nin dambi ahayn ilaahay ummaddiisa baafkiisa iyo gacantiisaba nimay ka magan galeen ka badbaadeen bay ahayd nin aan xumaan iyo wax kala aqoon buu ahaa nin ilaahay si joogno ilaahay jannadii firdawsa la ha geeyo taariikhdiisa in badan baad laga soo sheekeeyay kol dadkii hore ka sheekeeyeen intaan ka qaadno wuxuu ahaa qof wanaagsan oo helo cibaado ah dadkii ummadda ilaahay intuu xukumayay iyo inta kale ay ka wada nabad galeen ilaahay qabriga ha u wasiiciyo kulli qof walba maalin uu dhimanayay maanta iyo maalintiisii noqotay waxaan leeyahay samir iyo iimaan saadiq ilaahay ka siiyo qoyskiisa iyo qaranka Soomaaliland iyo dhammaan guud ahaan shacabka reer Soomaaliland maanta waxaan joognaa aaskii Cabdi Cartan Xaaji Abukar oo ah adeerkay Allah ha u naxariisto dhammaanteedna ilaahay samir iyo iimaan naga siiyo Cabdi waa Maxamed Ali Ahmed Maxamed Kaabe telefishinka caalamiga ee Bulsha TV degmada Sheekh